gabdhaha meel mataqaanaa banaanka ah oo iska yara mataqa darjiin ay fadhiyeen dad dhalinyaro ah oo markaas soo booqdaana la wada joogay ayaga horta colaad ka dhaxaysa labadooda markaas oo maba isa kala dheerayn inkastoo askaru ay joogeen naaga ah gabdho kaloo askar ah oo saldhig ka tirsan ay meesha joogeen gabdhii ciidanka dumar ku shaqeynaya sax gabdhahaas ay la joogeen haddana niyahow wallaahi niyo Soomaaliya xaalkeedu sida aad u malaynayso maahan wax badanna ma rabo inaan ka hadlo waxaan kuu sheegaa gabadhu inay caafimaad qabtay dadka hoos joogana u sheegaa xaalkeedu u baraambar ahaa niman odayaal oo dhalinyaro ah oo dhalinyaro isku jirto dhulmaantaana markaan magaalada soo aaday kadib aan is aragnay oo aad u caraysan marka dadka hay isdejiyaan leeyahay qofka marka la xiro dadku horta waa la gubtaan oo xabsi ninka soo maraa laga wareystaa ehelka waxyaalaha igu badan oo hadda inaan hadla xitaa aan u rabin waxaa ka mid ah dadka ehelkayga ah oo marka la xiro dee kurboonaya maaragtay xanaaqaya mataqaanaa buuq saamayn uu ku yeelanayo mararka qaar in maaragtay naftaada kaliya aa ka naxdid maahan oo waa inaad dadka xitaa ehelka iyo dadka ku ixtiraamaya u dabqatid waaye maalin kasta kula kurboonaya adigu maalin kasta dhib u joog inaad noqotid maahan gabar kaloo nashaad la yidhaaho anigana mataqaa aftigeeda ahaa ku jirta oo qayb ka ahayd dadkii la soo xiray garyaqaan kugu daray sax meesha adaa tagay waxaan ku weydiinayaa gabdhaha xiran horta gabdhaha xiran intee way wallaahi niyo gabdhuhu horta waa badan yihiin koox dhan dadka inta caankaa laakiin waa nashaad iyo habi intee way luusiina habi iyo afar kale oo gabdhood aan garanayn magacooda oo yeela afar ka socday markaas saddex askari iyo hal askari oo xidigla ah oo booliis ah iyo saddex nabad sugida iyo hal fakad ah oo xabsi ka soo baxaa jira 2 sano xabsi soo dhamaystay hadda waa gartay marka waxay ka dabageysaa gabdhahan waxay ka dabageysaa gabdhahan hadda waxaad tiraaday loo siinay iyo habi iyo gabadha aad adeerka u tahay amse abtiba u tahay saddexda kale gabdhood yaa markaa iyo la socdeen iga dabagey niyo horta habi dad sidaa u badan lama socon sidaan dareemayo culayska badan wuxuu ka jiray dhinacan luusiina ayaa culayska inta ugu badan ka jiray oo kulley meesha guriga hortiisaanan maaragta dagaalku ka dhacay habi sidaan xogta ku helay marka inta badan habi hadda waxaan dareemayaa kiisku inuusan aad ugu foorarin oo xitaa ninka la joogay wuxuu ku doodi karaa self defense ama nafteedan difaacayay yarka inkastoo istifaacid nin booliis oo ahaa xidigla ah marka wuxuu u samaynayaa iyagoo istifaaci karaan oo waxay ku doodayaan inta badan macnaha xabadda uu riday inkastoo asagoo xabadda bilaabay laakiin kala dhicinuu ka dhigi karee ma fahanta laakiin markii aad fiiriso ya isleeda khaladku waa qaadanaya garyaqaan marka nin maanta nin waay araga waa tahay nin xog dheer nin maanta si fiican wax u baari kara baa tahay ya isleeda maanta khaladkaas oo ku foorarta hawsha kiiskaasi waa dul yaalla dhihi karta markaa qiyaasto wallaahi waxaan dhihi karaa run ahaantii waxaan dhihi karaa garow allay u taallaa horta meesha waxaa imaanaysa arrinta labaa loo kala qaadayaa qaybna waa qaybta ciidanka qaybna waa qaybta gabdhaha horta waxay noqonayaan inay muujiyeen qalqalqalin amni inay sameeyeen oo waxaana rasaasa iyo ciidanku inay israsaaseeyaan sababta ka dambeysay inay tahay ayay dembi ku galayaan oo inay media isku haysteen ka bacdina ay arrintoodu gaartay gacan iyo hub qodobkaasay ayagu ay ka yeelanayaan askartanna waxa weeye meeshii ay kala badbaadi lahaayeen dadka shacabka ayoo diriray oo labadoodaba ay xiri lahaayeen iyagoo qarankii u shaqaynaya ayagii laba saf kala noqdeen marka waxay ku weyi karaan xitaa askarinimadooda markay cinqaabta ay qaataan kadib oo waqtiga laga goosto inin askarinimadana laga faayaro ayay mataqaanaa ku dhici karta inkastoo meeshu ay Soomaaliya tahay oo xeerarka hoos inta badan wax loo xaliyo oo aan maxkamad la gaarsiin xeer ilaalinta lala hadlo laakiin qodobo ciidan baa qabanaya qodobo ciidan qaban kara laakiin ogow qodobku macnaha sidii la rabaa laga dhigi karaa laakiin faham meeshu waa Soomaaliya ma xaaladda markaas laakiin Soomaaliya laakiin haddii gaarto arrinka miidiyaha laakiin inta badan bulshada indhaheeda wixii ku dhaca
oo qabta kiiskii indhaha bulshada qabta oo ay arkaan inta badan in maxkamad la horgeeyo u badan yahay waa sababta hadda taagan weyde sababta hadda kiiska cusuleysay waa kiiska miidiyaha galay hadduu wixii miidiyaha galaan oo ummaddu ay gaarto waxaa la isku dayayaa 100% xeer ilaalinaa joogta dambi baarayaala jooga degmo kasta dambi baaray leedahay baaro dambiyaa jira marka waxa weeye kiiskaas hal nin maqan sida xogta ku helay hal nin oo kaliya ka maqan dadkii falkaas ku shaqaalada lahaa inti kale saldhiga xamar jajab la geeyay xamar jajab iyo xamar weyne haddaad maqashidna waa ku jirtaa shuuta u socotaa macnaha saldhiga xamar jajab waxaa ku yaala xamar weyne iyo xamar jajab haddaad maqashid midna waxaa ku yaala xabsiga dhexe midna waxaa ku yaala maxkamadii tinkin xamar weyne ma ku wada yaalaan labada maxkamadda xitaa xamar weyne waaye marka haddaa aagaas lagu dhaweeyo degmooyinkan kale macna xoogaa qabiilay u yara eg yihiinoo dad waxaa degan dee xoogaa hal dhinac oo waxaa la dhihi karaa reebelan xirtay buuq noocaasaa la furi karaa xamaasadaa la gelin karaa xamaasadaa la gelin karaaho ragga iyo guddoomiyaasha iyo taliyaashu waa hal dhinac waa beri iyo mataqaan hodan marka waa la dallacaba waa la gudbiyey labadan degmayna deganaayeen waa la isdaafiyey shuuta wuxuu yimaada shal yimaada sabaa ما شوته حقا أرنت والله كرة الله يرقى قاضي ياهي معناه شوطة إيه خليه درت وما إيمانه هرمه بدنا وياه ليه حولك كلا دني كان محاينك دوانا ما ودنيني لك كيس كان ودنيني معناها وحدا يلا واسدة حقت يوسو قارتي سراكيش أنا قارن صارت عليها شلون محمد السعودي دقمة وابري اسمه جري الري وماشي جيبة أو ما تقارن وده السعودي أنت بدنا حتى على اسكما قلي كرا هذا ما أنت أديك يسي تبع حديد أب ما يريدك يستك أوتك إذا كافر من الباب ما يقف مسؤول هنا كذا خصبيه وقف مسؤول قف مسؤول هنا معناه وإذا تيد أو نقصد نوع عصا قارئ إذا نجيب سوق الشد ما هنا قف كستا اسكما قلي كريم marka niyo waa la kala fududahay laakiin aniga waxaan dhihi lahaa inta badan in kiiska aan uusan gudbin oo xiraalinta laga soo celiyo haday awoodaan in arrinka qaabkaas loo dabaalaa qurux badan horta ka damgeynaya horta kiiska hoos baa loo xalin lahaa kiiska hoos baa loo xalin lahaa maalmii ugu dawaa la isku day in hoos loo xaliyo habi baa diiday waxaana tiraaday anoo kiiskiga maxkamad maaha meel kale aan ku qanco iyo meel kale aan u baahanahay absolutely midna ma jirto baa tiraaday soo ma garan waxay iyadu maxay ku dhigtay way because the qofka duu meel ku dhaga xaq waa u leeyahay inuu kaale soo ma si fiican marka xitaa maxkamadda u baahanahay marka sidaas maxkamadda marka lagu qabtay de qofkuna xaq buu leeyahay qof la weeraray gurigiisa lagu yimi de hadii lagu soo weeraro oo dad ugu yaraan 10 qof ku soo weerareen hub iyo wax kasta wata de any time hadana maxay wiilkaas oo la socon lahayn de hawsha maanta hawl ka weyn baa olaan lahayd markii xaqiiqda laga hadlo because gabar la soo weeraray oo kaamirooyin loo soo kaxaystay ciidan loo soo kaxaystay oo misna suuqa aan lagu weerarin beedkiisa xanaysay nafsi ahaan haddii macallaf diinahan diinta loo fiiriyo qofka xaq wuxuu leeyahay gurigiisa hadduu lagu soo weeraro qofka inuu istifaaca maca naf gooyo soo moog nafti inuu qofka ma iska cay nafta ka gooyo laguma leeyahay soo moog diinahan markii diinta laga hadlo waxa qabsanaya qodob waxa qabanaya in ayagoo ciidana macnaha xabadda ninka bilaabay horta wuxuu ahaa askariga macnaha xogaa qodobkaas waxaan isleeyahay askarta isxabadaysay in dhankeeda loo eego oo la yiraahdo maxaa isku rasaasaydeen u kala dhici weydeen gabdhaha askarta taasaa qabsanaysa gabdhahana waxaa qabsanaysa arrinkiinu miidiyo ka bilowday waa in ka aamusnay waa soo socoteen gacanaa tagteen iyo inaad ciidan soo kala wadatiin ayagana qodobkaasaa qabanaya marka inuu ilaahay ha u yasiraan leeyahay ani ma rabo inaan dhex cararo gabdhahaas waa laba gabdhood oo walaalahay yaryar ragaa maanta maaragtay ku dhiiqoobay oo maanta kala safarshadii meeshii kala dhici lahaayeen oo arrintood geli lahaayeen oo kala maslixi lahaayeen ayaga la kala safteen oo ayagii kasii liiteen oo dumara oo mataqaanaa feer qaloocana ayay hor carareen oo dhiiqa geliya ayagana dhiiqa isgeliyeen marka niyow ani waxaan dhihi lahaa dhalinyarada niyow horta ay aragnimada aniga xabsi waxaa maray ilaa iyo 2009kii xabsi uu ii bedelayay runtaan kala hadlaya dadku كريقان مرسدي كرا حبسك درس بالله مرسدي كرا والله كوي طبعا مرة يا الله يحرم أنا إنك استوى وقت كريقان واحد يرسل دتك حيلك يا قف كهرباء أنا سوق بسنة قفنا يمز قبنا كرتان قفنا يمز أرجع أنا جوز كسكال قلكيga أبسل أنت يقول markan niyo والله إله هو يسرو معنا dadku waa ku camirayaan markii banaanka la joogo
laakiin qofka kuu imaanaya ama hawshaada isku hawlaya waa dad yar oo fara ku tirisa ama kuu raadinaya lawyer ama kuu raadinaya qofka kiiskaaga haya ama xeer ilaalin kaala hadlaya waa 3 ama 2 laakiin xaqiiqada jirtaahu markaad miidiyaha joogtid waxaad arkaysaa kommentiyo qurux badan legend libaax geesi anaa codad noocaasa hore u soco keep going waana matashay xitaa waa maqlaya mararka qaar dadka ayagaahu waxa kaaga soo baxaya maalintaad xabsi gashid qof ama 2 waxaa soo hara your family hooyada iyo aabaha kaasina walaalahaaga dadka de caaqiladaada hoosa ridiin ma taqaanaa de wixii commentiga lagu qoray aa u qaadatin wax run ah inaad tahay waa beena iska dhaadhicisana gariiqaan laakiin mid baan kuu sheegaya gariiqaan waxa ragga soo geliya kuu sheegaya muhiimadu ragga waxa goobta soo geliyay markii de gabar dhalinyara oo shakhsiya loo kaxaystay de rag loo kaxaystay iyo dumar rag siba rag hubaysan oo wata loo kaxaystay de walaal ma rag waa soo galaya rag sababta rag u soo galay ilay gabadhu de rag laan ma qof walba adduunka gabar kasto adduunka joogta de waxay leedahay ilma adeer iyo rag bay leedahay muhiimadu maxaa sababta hadii laba gabdho istagaalayaan sababta iyagu gabar dumar oo xarki jiray dumar iyagu weerar ku qaada laakiin gabar weerar qaadaysa oo loo soo kaxaysanaya rag hubaysan ka war oo raggii lagu talagalay inay dalka difaaci lahaayeen oo dalka cadawga ka ilaalin lahaayeen inay dumar loo adeegsado taanu sadeeso in rag soo galayso waajib ma in la isku dila xaqa koos dumarka waa la isku dila fidmada adduunka dagaalada dhaca waxay ka bilaabaan badanaa dumar bay ka bilaabaan marka xaq inuu rag soo galaan waa waajib gariiqaan la soo ay marka muhiimadu waa taas guys rag inuu soo galo waa waajib sababta u soo galaan waxa weeye meel bilaa rag adduunka ma jirto qof bilaa ragana ma jiro qof walbana wuxuu leeyahay ahli qaraabo leeyahay marka anu waa ku saxsanaa rag inay soo galaan maxay laakiin hawshaas maxkamadda waa ka sugeynaa wax soo saarto insha Allah iyo kiisaska sida u socdaan kole gabadha wadan dawladeed bay joogtaa meesha joogto waa meel dawlada waa meel dawliya waa meel de badana ورا البلد جوك السلام عليكم